kusoo dhawow magaalada Berbera بربراي waxaad tahay abarta la isku jaaje caalamkuba bidaansado بربراي waxaad tahay anu waxaan ahay reer Berbera waxaan kan aad iyo aad ugu soo dhaweynaya bulshooyinka reer Somaliland halkan soo gaaray waa Batalaale waxa way Batalaale waa beachka ugu quruxda badan ee ay dadku isugu yimaadaan waxaad leedahay airport-ka bilaniyo joognaa Berbera waxaan ka nimid Hargeysa inaan u soo dalxiisno dhulkayga hooyo waxaan maanta ugu faraxsanahay inaan la kulmo qays yare afar xaasle oo hayna maanta iyo badi Berbera jawi macaan oo jimca ah ma sha Allah tabaaraka Allah baan leeyahay afartii niba soo idinkan oo soo wala afartiiba waxa ka mid noqday oo nasiib u yeeshay la kulmo channelkii qaysar aad baan ugu faraxsanahay anoo jooga badi Berbera tahayna maalintii ugu horeysay aad baan ugu faraxsanahay Somaliland mante ti sobinayse biladana u yeeshe Afrika babarkeeda biladana u yeeshe Afrika babarkeeda السلام عليكم والله وناكسيه باش ما شخص وما سلام قررين waxaan u maleynayaa cid iga badin karaysaa halkan ma fadhiday way kala duwan yihiin miyaa labadaas qaar magaceeda yaqaana qaar dhigisteeda Berbera ariga meesha Tanzania ilaa marka meel kasto joogto inakayga yarbaad ku taageero maasha Allah shalay baa sawir la gal daraad dekedu ka soo baxayo macallin uu baylaha loo dhaqa sayidkii qirshiga nuuray cali baswagadi cidlada ma beermen dadku runti waaxidahee صاحبي halkan soo gaarnay waa moofadii cilmi Ismaaciil Liibaan cilmi boodari waxa weeyaan moofadan waa moofo taariikh aad u fara badan ay ku duugan tahay cilmi boodari wuxuu magaaladan Berbera ku dhashay 1908 wuxuuna ku geeriyooday 1940 intii uu halkan ku noolaa waxa noloshiisa waxa weeyaan saameyn weyn ku yeelatay gabadhii uu jeclaaday ee loo oran jiray Hodan Cabdilaahi runtii wuxuu ka shaqeynayay moofadan marka uu arkay Hodan waxa weeyaan ilaa iyo jacaylkii uu qabay uu bogga iyo beerka isku dhajiyay oo waxa weeyaan uu geeriyooday halkan uu haystay muufadatan cilmi boondari magaaladana muufooyinkooda way yaraan tiisa kayu loo soo gali jiray baa waqtiga markii kayuga loo soo gali jiray baa gabadhi timi gabadh baa markaa timi Hodan baa timi ummadii iyadina dadkii oo dhan baa soo wada dhaafay ka wada damay isla roodidu miisaya wuxuu yiri gabadhan u samir badan jacayl baa ku dhacay markaa maantii dambe ayuun baa gabadhii lagu dulguursay inta ka tag markaa doonyahan dulxunta wada doonyo dulxunta la oran jiro bariga markab yar lagu soo jiido taag ayuu waday baa leeyahay ninka inta gabadha guursanay dabadeedna wuxuu markaa ninkaas guursaday gabadhii ama boodharina waa dhacay markuu maqlay gabadhii waa la guursaday heeso badan buu markaa qaaday hablo fara badan baa loo keenay oo la yiri bal kuwan baa kala doorto boqolaal baaba loo keenay anigu ba qadraan soo arkay oo qaararkii hodoonay ayaa qabatay qalbigu wax yeelaya naas ka qaaway inana yabahay adin qatali qariya laabti hariha suu sitri kabacdi cilmi boodhari Djibouti baa la geeyay dabadna hees buu ka soo qaaday marka anigu heesi 2-3 baad ay ka taabanaya heesta weesha soo raacay adaa dabeel yahay dhoofayo dhulkii tagaya
ونهض سيدا سايا يجي جارسي غير كعلم بندري هاو دلو كتسم بايني وارقبض نوفر بالي قبضها نوفر ها نوفر ممكن أن نركع ديتك عن مركع وقت قعدتكم حضرتوا إلا إن اللي ما يناك هذا فره بقول حالات نبرق هذا غالي بيحي غالي halkan doolarku ku jiro maanta ama dahab ku jira bay dumarka ku jira geel boqolkii halaad baa ninkii u yar hantay dabadeedna suldaankiisa oo meesha baran la yiraahdo jooga baa warka loo sheego wax la yiri shabeel caynkaas uu yiri boqol halaad buu qaadanaa gabadhina waa furaya haddaad faraaq buu soo dhigo haddaad gabadha furto bartaada ku dilku tahay gabadha wixii aad ku jeclaa ay lagu jeclaaday baynu inaguna ku jeclaanay dabadeedna ilmo loo dhiri waa xaqi waa ku soo dig xaqi ha adigu de xaqi baa ku soo digi laakiin dadku waxay leedahay jacayl buu dhintay laakiin tiisi baa dhamaatay marka dabadeedna gabadhii baa jacaylkii ku dhacay jacaylkii baa gabadhii ka daba yimid jacaylkii baa ka daba yimid iyada oo baa lay sheegay maalin maalmaha ka mid ah sii socoto Hargeysa ku socota waanan heesi u soo qaaday wayba dhacday dabadeedna waxa leeyahay maxaa gabadho markaas la yiri la geeyay Hargeysa markaas la garan baweenay heesi marbeerdiri iyo wax taabatay jacaylkoon waxa weeye halka gabayayada kale ay qaar siyaasadda ka hadli jireen qaar nolosha qaar qabiilada qaar wax kale ka hadli jireen kaliya ta wuxuu ka hadli jiray waxa weeyaan waa jacaylka kusoo dhawow damal berbera mar kasta oo aan magaaladan berbera imaado waxaan dagaa damal mar kasta oo aan damal degana cuntadayda may favorite-kaay waa falaad fish waxa weeyaan anigu waxaan oran karaa damal berbera marka la yiraahdo waa number 1 waa hormuudka hoteelada waa hormuudka lagu soo hirto waxaa ka mid ah customer-kayga waaweyn DB World baa ka mid ah oo capacity-ga aan leenahay ku qancino waxaa ka mid ah inaanu dawladda xarumaha dawladda madaxweynaha waftiyada yimaada ganacsatada dadka kale dhalinyarada cid walba hudhalkayga hurdadiisa cuntadiisa chefkayaga waa number 1 intii waanan idinka mahadcelinayaa maaragtay dhammaan customer-kayga oo dhan sida nagu xiran tihiin intaan aan idin hayno iyo inka badan oo soo wadnaba oo sanadada dambe soo socda aanu ku samayn doono dib u habeyn aad u weyn hoteelkuna waa hoteelka ugu wanaagsan fiyugiisa fiican yahay cuntadiisa fiican tahay damal waxaan leenahay customer fara badan dad ajaaniba dad diaspora dadka localka ah intaba si fiican baan wada qancinaa aniga iyo teamkayga maaragtay la shaqeeyaba oo team aad u wanaagsan oo team work baan leenahay runtii waxaan kala uga mahadnaqayaa halkan awalan Xaaji Maxamed Saciid oo uu sameeyay ummadda wax wanaagsan oo ah mulkiilaha shirkadda Daabshiin iyo CEO-ga Saad Maxamed Saciid oo iyana ah maaragtay booskayga Cabdirashiid Maxamed Ducaale isaguna ah maxamed CEO guud dhammaan teamkaagas oo loo mahadnaqaya oo noo sameeyay maadaama dhalinyarada nahay waxa quruxda badan leh in ka shaqaysanayno una shaqaynayno haddii qurux la daawado inuu cadmi ku qancaayo ama ili wax qabanaysa oo lagu qaboobayo aniguba qadaan soo arkiyo qaararkii mudane hablayo halkii qoomanay baaci qabateene qalbigan bogsiinayayba qaciga siiteene qosolka yaryari halkan aan soo gaadhay sida aad arkaysaan
waa dekeda magaalada berbera dekedan imika aan dul taaganahay waxa la aasaasay 2020kii DB World ayaa investment 200 milyan oo dollar gelisay waxa way saad arkaysaan halkan imika aan joogo wallahi lama mooday inay waxa weeyaan Soomaaliland tahay inay imaaraadkii tahay baa la moodaa sababtoo ah style-ka iyo qaabka ay u dhisan tahay iyo qaabka ay tahay oo dhani waxa weeyaan waa qaab cusub oo waxa weeyaan wadankeena ku cusub dekedu waxay soo martay marxalado aad u fara badan run ahaantii markii hore waxay traditional port markii dambe imika waxay soo gaadhay international port berigii hore maraakiibta containerada waxa ka roogi jiray wiishka ku yaala markabka dib badan baa naga qabsan jirtay markay dabayshu soo dhacdo markabku uu ciyaarayaa dabeedna shaqada la joojin jiray mar walba waxaan eegi jirnay sida uu weatherku yahay ama dabayshu tahay hadday dabayshu badan tahay shaqada way istaagaysaa hadda waxay soo gaadhay facekii horeeyay ee container terminalka ayaanu sameynay waa 400 mitir saddex wiisho waaweyn baa saaran STS gandari crane oo kuwa sida shimbirta ka dul guranaya containerada markabka alxamdulilaahi rabbil caalamiin anagoo siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland raacayna ee ku wajahan horumarka dhaqan-dhaqaale si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha dekedu waxay ka mid tahay boqolkiiba 80 halka dakhliga jamhuuriyadda Soomaaliland uga soo baxo ahmiyad fog bay markaa dawladdu ka leedahay in la ballaadhiyo facekii labaadna insha Allah waxaan rajaynaynaa marka transit agreement la saxeexo inuu isaguna dhaqaaqo 600 mitir ah 10 wiish oo waaweyn oo kuwan la mid ah saddexda ah iyagana insha Allah la soo saaro marka run ahaantii markaan soo ururiyo dekedu waxay ka soo guurtay deked aan caadi ahayn oo iska standard hoos ah maantana waxay buuxisay inay ka mid noqoto dekedaha Afrika dekeda labaad maadaama aynu ku jirno sanadka dhamaadkiisii waqtigan waa waqtiga ugu xaamisan ee ugu shaqada badan la dekedan magaalada berbera waqti lagu qiyaaso 150 sano ka hor ayay dawladda Cismaaniyiintu ay yimaadeen berbera waxay ka hirgeliyeen masaajidkan sidoo kale waxay ka hirgeliyeen guri masaajidkan u dhow oo ay madrasad ugu tala galeen oo dhagax ka samaysan ilaa 30 sano masaajidka waan ku tukanay malcaamad bay halkaasina malcaamad ahayd qolada dhistay waxa Cismaaniintii wuxuu ka samaysay dhagaxa dhowr jeer horna wuu dumay oo waa la bedelay hadba waa la bedelay qolada u dambeysay hadda dhistay waxay qolo la yiraahdo shif lagu tukadaa waa masaajid qadiimi masaajid hore wada oo madii hore oo waqtigii masaajidkan la aasaasay aanu leer ku jirin waxa weeyaan design-kan buu masaajidku u samaysnaa halkan waa halkii faynuusyada la suran jiray waxa weeye masaajidka iftiinkiisa halkaas la soo suri jiray masaajidka oo dhan na waxa weeyaan looxan uu ku wareegsan yahay oo uu ku dhex dhisan yahay design-kiisii ugu horeeyay baa lagu dhisay waxa weeyaan anigu de taariikhdiisa badanaa ma wada hayo masaajidka ilaa iyo 270 qarni inuu dhisan yahay ayaa sheekadiisa iyo taariikhdiisa ku haya marka idigu waad aragtaano dhismaan de nagu mali marka waxa weeyaan masaajidkuna de waa masaajidka qadiimiga marka isaga iyo meeshan kaleete maxaa meeshaas wadankaas oo dhan waxaa la sagdiisi jiray kolkay dhisto kuwa islaaminiintu kolkay dhisaan iyagu meel sameeyaan mid kale laga dhisi jiray oo nimankii maartay ayay kaga dhisi jireen hadda ka kaleete ku xiga ingiriiskii baa dhisay marka masaajidkan taariikhdiisu anu intaasan ka wax kale soo maartay taariikh kale soo saasan uga hayaa ma jiraan masaajidkan albaabkiisu ka duwan yahay masaajidda kale oo dhan saad arkaysaan dhererkiisu waa 3 mirir tankiisana waxa lagu qiyaasaa ilaa 20 tan aad iyo aad buu culus yahay waxa weeyaan
markaad xidhaysa markaad furaysaba waad arkaysaa inuu yahay albaab aad iyo aad u adag oo looxi waqtigaa laga sameeyey